بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخوة الكرام، إن شاء الله ودرسيني ديني أها وأن وقفا إلي سنيني تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام قيب كميدة أما قيب كميدة. فضلنا محلقذينا وحلقذي صدحات وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن وقشيكينيني xilqadan insha allah waxaan kusoo qaadanaynaa siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam. markii nabiga calayhi salaatu wasalaam nebinimada loo doortay ilaa uu nabigeena u hijrooday ama hijradii ilaa saxaabada uu nabigu amray hijrada ay u hijroonayeen xagga iyo geeska africa ama ardul xabasha, waxyaabihii dhacay ayaanu kusoo qaadanaynaa. waxyaabihii dhacay micnihii waxaa ka mid ahaa maalan waxyiga inuu kusoo degay nabiga calayhi salaatu wassalaam. nabigeena markuu gaaray 40 sano, waad ogtihiin, jibriil ayaa kusoo degay nabigeena calayhi salaatu wassalaam. waxayna ahayd maalin isniina 17 laga joogo bisha ramadaanka. xadiidkaas waxaa nooga sheekeynaya ama noo warinaya waa bukhaari xadiiska, waana saxiixu lbukhaari uu ku qoran yahay. caa-isha ayaana si fiican u faahfaahinayso oo nooga sheekeynayso. waxay leedahay caa-isho, shayga ugu horeeya nabiga lagu bilaabay calayhi salaatu wassalaam waa riyo wanaagsan ayay ahayd. nabigeena calayhi salaatu wassalaam nebinimada markii loo doortay shayga ugu horey lagu bilaabo waxayd riyo wanaagsan. riyadaas waxaa loo yaqaanaa alru'ya asaalixa, waa ru'yat lambiyaa, waa riyada ambiyada oo ilaahay uu soo diray subxaanahu wa tacaala. ma ahan riyada caadiga ma aha. riyada ambiyadana waad ogtihiin waa waxyi oo ilaahay u waxyoonayo. maxaa yeele waxyiga dhowr qaybood ilaa 7 ayay culimada gaarsiiyaan qaybood. nebiga markuu riyoodo, waaga markuu baryo, shaygii isagoo cadaan ayuu arkayay markuu waaga baryo, waa xaqiiqa. waxay lamid ah riyadii nabiyullaahi ibraahim uu ku riyooday isagoo wiilkiisa ismaaciil gowracayo. waatuu yihi: yaa bunay إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. riyadaas oo kale waa. kadib nabigeena calayhi salaatu wassalaam waxaa ilaahay qalbigiisa geliyey oo la jeclaysiiyey, yacni kelinimo, inuu keligiisa meel aado nabiga calayhi salaatu wassalaam. maxaa yeele waxaa loo diyaarinayey risaale ayaa loo diyaarinayay. sidaa darteed ilaahay wuxuu qalbigiisa geliyey kelinimo. nabigeena wuxuu ku keliyoobi jiray, uu gaar u noqon jiray, uu u aadi jiray si gaar ahaan godkii loo yaqaanay qaaru xira. kadib khadiijo ayuu usoo laaban jiray, sahaydiis ayuu nabigeena qaadan jiray calayhi salaatu wassalaam. ilaa uu yimid waxyigii isagoo godkaa ku sugan qaaru xira. malagii baa u yimid, malakul jibriil. markaasaan wuxuu ku yidhi: iqra yaa muxamed, ama iqra muxamedow aqri. nabigeena wuxuu yihi: maa ana biqaari,
warani waxa ma aqriyo maxay nabigeena kaana ummiyan ayuu nabigeena wuxuu ahaa ummina waxa lahaa man la yaqra wala yaktub yani qofaan wax aqrinin waxna qorin ayaa ummi loo yaqaana sidaa darteed baa nabigeena wuxuu yidhi maa ana biqaari marka nabiga ka sheekeynayo xoogay wuxuu yidhi jibriil wuu iqabtay wuu icaburiyey ilaa xoogay dhib i gaaray markii labaad ilaa markii saddexaad ayuu ku celiyay jibriil calayhi salaam siiradu way dheerta xadiisku dheer yahay markii saddexaad markuu saas yeelay waatuu jibriil yidhi iqra' bismi rabbika aladii khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الصورة هي الصورة الأولى التي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم هذه وصورة أجوه رئيسي النبي نكسو دقت عليه الصلاة والسلام إلى وحير أقري محمد اقرأ باسم ربك ربك مقعيس أدقوا كب الله بنا ما أدقوا كلها المقع ربك الذي خلق الله سو خلائق أبوري خلق معنى الخلائق خلق الإنسان من علق إنسان كان كأبوري أدركيس خروح ذا بدن يعني عد يعني حنجرة وإلهي كأبور سبحانه وتعالى اقرأ أي إلهي سبحانه وتعالى وربك الأكرم اقرأ أقري محمد وربك ربك أي وربك الذي أمرك بالقراءة ربك كو أمري إن أدوح أخرسيت الأكرم وأميتك كو كرامة بدن وكو شرفت بدن الذي علم الذي الله علم بني آدم كان بري بالقلم الخط بالقلم القلم محلوك قرأ علم الإنسان إنسان كأمري جودان ما لم يعلم وحين الأقوال آياتهاس أو آيات كوبات إلى آيات اللحاد أو سورة اقرأ النبي كسوة تجت عليه الصلاة والسلام هذا النبي وح عصب أيو أركي النبي وصاع الري سقو عبسنا قلبي سآد وقرقرينا وصاق علي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها markaas wuxuu ku yidhi zammiluunii war idada ayuu ku yidhi khadiija ilaa ay xogay nebiga cabsidii ka tagtay markaasaa nabigeena khadiija ayuu warkii uga sheekeeyey markaasaa wuxuu yidhi laqad khashiitu calaa nafsii nafsadeydaan u baqayo nabiga calayhi salaatu wasalaam marka khadiija iyadoo nabiga qalbigiisa dejinayso ayaa waxay ku tiri يعني كلا لا تقل كذلك صاها دينيت والله لا يخزيك الله أبدا حي إلهي ولقى كوه جنمان صابتها إنك لتصل الرحم حي الذي قرابات حريري صح وتحمل الكل عليس آيات قاعدة بيتري وتكسب المعدوم وحيابها اللوائل لا يعني آيات كسبتها ودك سمعنا فقراء آيات وحيابها أن لهلي كرين آيات يعني أقولك هالميساء وتيساء وتقري الضيف مرتدى آيات صورتا وتعين على نوائب الحق ددكنا وحدقوك هالميساء حق وحي الذيس وحي يعني حي الذيس وحي يعني رباتوين ددك سو غاري حق كسو غاري درتيسي آيات وكالميساء وحي دونتها تكالمداس كدبنا قديجة سي نبي قلبي سو دجسو أيا وحي قرتي أما حوغي يعني استري ورقة ابن نوفل أو إن أذيركيد أي أوجيسي سي أي أوجيسي أم النبي أوجاد عليه سأوبرتو دعوة أم هوشن إن لوجه هري وأوكنتي ورقة ابن نوفل أو نصارى نصرانيا أيها سجواجي جاهلية وحن آدو يقاني كتبتي هري مركز ورقة أيها وحكيري نبيجا ماذا ترى محاد أركتها ويري يا ابن أخي نبي وحوجا شيكي وحابيه وأركي مركز ورقة نبي وحكيري هذا الناموس الذي نزل على موسى كاس وحيري وخير وذه كسو دقي نبي الله موسى عليه السلام أيها مركز ورقة وحوشا لايي إن نولاده
يعني وقت النبي عليه الصلاة والسلام وتويري يا ليتني فيها جذعا أيري ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك وحيري شليتني دي maan ahaado qof dhalinyaro oo xoogan markaas sida shalaytadeedii maan ahaado qof nool markay qoomkaaga ku saari doonaan nabigeen ereyga ayuu la yaabay oo markuu yiri waraqa in qoomkaaga markay ku saari doonaan oo magaalada ay ka saari doonaan nabigeen wuxuu ku yiri aw mukhrijiyahum oo miyay isaarayaan magaalada miyay iga saarayaan markaas waraqa wuxuu ku yiri way ku saarayaan maxaa yeelay waxaan aad la timid dacwadan diintan aad la timid qof macni la yimid ma jiro adiga ka horeeyay ilaa waa la coloobay marka waa la colaadiyay adigana wadadaas aad maraysaa ayuu yiri laakiin wuxuu u shalay wuxuu yiri hadii aan maalinkaas joogo aan joog ilaahay gaarsiyo yiri waan ku heelin doonaa waan ku garab istaagi doonaa ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam waraqa ninka saas ku yiri waxyaabaha waxaa ka mid ah maalan in qaar ay soo islaameen diinta islaamka ay soo galeen dadka ugu horeeyay islaamay ugu hor islaamay waxaa loo yaqaan ar-ra'iil al-awwal way qayb badan yihiin ar-ra'iil al-awwal dadka ugu horeeyay soo islaam waxaa ugu horeeyay yani khadiija oo nabiga xaasiisa ahayd kadibna in adeerkiisa yani ali ibn abi talib radiyallahu anhu isaga oo 10 sano jiro kadib nabiga mawlihiisa ahaa waa zayd ibn xaritha adeegihiisa ahaa kadibna abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu وكان أول من أسلم من العبيد بلال ابن رباح الحبشي الضوامض وحقوه ري بلال رباح الحبشي سيد علي وحقوه ري ذاتك المعرورة أبو بكر وحقوه ري حدا هذا دحي خديجنا لما بيدا أقول ذاك يدوم أربعة ما اللي هذا سبحانه وتعالى داعي إن أبو بكر وها رقي دوروه ري لكن خديجة يا لو بديه إن وحاكتب وحابا حاكم إذا مثلا وحي بقى فترة الوحي xoogay waxyigii baa kala go' ku yimid taasna waxay ahayd imtixaan nabiga la imtixaana ugu yaraan marka culimada siyar way isku khilaafaan qaar waxay dhahayaan 3 sano ay dhahaan yani qaarna waxay dhahaan 6 bilood waana mid ugu xooga badan nabigeena wuxuu aad ugu dhibtooday waxyigaas go'ay waana murugooday aad buu nabiga muruga calayhi salaatu wasalaam ilaa uu nabigeena ku dhawaaday in uu aado buuraha oo buurtiis ka soo tuuro maxaa yeelay نبينا عليه الصلاة والسلام أمري إنه إلهي وعروضي سبحانه وتعالى إن شاء الله وحامرك إن الله سبحانه وتعالى إنه وعروضي نبي أقات عليه الصلاة والسلام كذبنا حديث كسبحانه ورنا جابر وصحيح ورنا رضي الله عنه نبي كشكنا وحليه هاي أنيقو صعدا وحان مغلي عط أيان صمدك مغلي مركاسان كر إيجي waxaan arkay yiri waaba jibriil waa malagi igu yimid godkii qaaru xira oo ku faliya ala kursiyihin bayna as-samaa wal ard kursi u dhaxaya samadii ardada subhanallah markaasan argagax wuxuu yiri waxaan u soo laabtay ehelkayga dana waxaan yiri zamiluni waa markii labaad ilaahay baa wuxuu soo dejiyay ayuhal mudaththir qum fa andir ayaa ilaahay su'aaladas ay suuradaas ayaa soo degatay waa suuradii labaad oo nabigeena ku soo degatay calayhi salaatu wasalaam nabigu waxa kan isduuduubayo istaag aaliyiri fa andir dadka waxaad uga digtaa gaalada ay cadaab ilaahay uga dig hadii ay wadadan ku sii socdaan ilaa qawluhu ta'ala warrujza fahjur ilaahi subhanahu wa ta'ala wa thiyabaka fatahhir dharkaaga daahiri warrujza fahjur asnaamtana ka guur ay ilaahi subhanahu wa ta'ala yani kadib waxaa dhacay nabiga calayhi salaam wuxuu bilaabay inuu dadka islaamka ugu waco dad wixii yani qof alaal qofku ku kalsoon yahay ayuu nabigeena dacwad ugu wacay ilaa ay islaameen tiro oo rag ah yani iyo dumar ah kuwaasoo nabigeena uu isiri waa dad xoogay caqligooda uu roon yahay marka insha allahu yani xilqadeeni yani saddexaad intaas ayay nagu egtahay insha allahu wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh